maamulka sare ee naadiga kubadda cagta Muqdisho City Club ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii mar un cadaalad ay u heli lahaayeen kooxdooda kadib markii ay sheegeen in xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu uga hiiliyay kooxdaasi kooxda kale dhigooda Horseed. Abukaate Cabbaas Cumar Xuseen oo ka mid ah qareennada Soomaaliyeed ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay dacwad ka dhan ah xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed isla markaana ay u gudbiyeen warqad ku saabsan dacwadda la soo gudbiyay hase ahaatee aysan ka soo jawaabin. ogeysiintan sharci muhiimadeed waxay ahayd in laga cabtay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo hogaaminayo gudoomiyaha Cabdiqani Saciid Carab naadigan Muqdisho oo ka cabanaya in cabashadaasi naadiga inuu soo gudbiyeen annagana aan u gudbinay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta in uu ka soo jawaabo ayaan u dirnay xogeeyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo gudoomiyaha intaba 5tii bishii 8aad 2021 anagoo ogeysiintan sharci ugu sheegayno in naadiga Muqdisho cabashadiisa ay saldhig u tahay koobkii finaalka loo balansanaa sida xeerka lagu maamulo kubadda cagta amba horyaalka Soomaaliyeed kubadda cagta 2020-2021 qodobadiisa 5aad iyo 8aad in xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ay u gafeen xaqna u lahaayeen naadiga kubadda cagta Muqdisho in labadaas qodob waxa ay sheegayaan marka maadaama aanan helin wax jawaab ah iyo ogeysiinteeni sharci aan u qornay amba aan u dirnay ninka la yiraahdo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo ka soo jawaabi waayay annaga tilaabooyinka labaad ee aan qaadayno si aan hore u sheegay qofku inuu dacwo kar xaq dastuuri ay tahay in aan dacwad ka furno maxkamadaha. Cabdullaahi Maxamuud Cali oo ah khabiir dhanka ciyaaraha ah ayaa ka hadlaya habka loo maamulo ciyaaraha dalka gaar ahaan labadii koox ee ugu dambeysay horyaalka dalka ee Muqdisho City iyo sidoo kale Horseed. waxaan aad u leeyahay experience inta uu leeyahay oo xagga sportiga iyo ciyaar final in forfeit lagu dhiibo ma dhici karto sababtoo naadiga forfeit looga dhiibay iyo naadiga qaatay laba naadi waaye labadaba Soomaali waaye dambi ma laga galin kuwaas waxa dambi laga galay 70,000 taageerayaasha 100,000 taageerayaasha oo sportivada imaanayso taasa laga galay. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.